بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka qaranka TV oo la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Soomaalida iyo caalamka intiisa kale waa maalinta lado taariikhda ay ku beegan tahay 11 Agoosto sanadku waa 2020 qodobada wararka xiisaha badan ee xiliga kan oo idin hayo janalka qaranka TV-na waxa ugu weyn ciidamada ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dib ka faahfaahiyay howlgalkii qorshaysanaa oo ay ku fashiliyeen weerarkii lagu qaaday xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho qasaaraha ka dhashay weerarkii wararkii ugu dambeeyay ayaan ku eegi doonaa taliyaha ciidamada asluubta oo xilka laga dhigay maxay tahay sababtu xog ku saabsan ku daawa janalka qaranka TV madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho kula shiraya toddobaadkan gudahiisa hogaamiyaasha dawlad goboleedyada muxuu sasalka ku haya shirka barsaabtani Axmed Madoobe oo ku soo wajahan Muqdisho iyo hogaamiyaha Galmudug oo isaguna ku soo laabanaya Muqdisho warar ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa iyo ujeedada shirka waxa uu daaran yahay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo howlgal qorshaysan ka fuliyay gobolka Shabeellada Dhexe oo ka dhana ururka Shabaab goobaha ay gaareen ciidanka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa warkeena Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo ka celiyay wafdi ka socda dawladda Kenya kadib markii ay u soo gudbiyeen fariimo u soo dhiibay Uhuru Kenyatta balse Madoobe uu ku gacan seeray iyo Sacuudiga oo u tanaasulay Imaaraadka Carabta qodobadaas ay daawo doontaan saaxiibada xishmada iyo qadarinta naga mudan meel kastoo dunida ka joogtaan waxaanu dilanahay wanaagsan oo wacan daawadayaal doodan waxay ku saabsan tahay xiliga kan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir isugu casuumay hogaamiyaasha dawlad goboleedyada shirka waxa uu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho sida uu xogta ku helayo janalka qaranka TV diiradana waxa lagu saari doonaa arrimaha wada shaqeynta dawladda iyo dawlad goboleedyadu inkastoo xogahan helena ay tilmaamayaan in barsaabka Puntland oo shirkaasi ka cagajiiday imaatanka magaalada Muqdisho si uu taageero iyo qanacsanaan ugu muujiyo dawladaha markaas gacan saarku la leeyahay Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka waxaad kale ka soo aragtay dhiibo kartaan Kismaayo oo laga eriyay wafdi ka socda dawladda Kenya kuwaasi oo markaasi heshiis doonayay inay la galaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe balse Axmed Madoobe uu qaaday tallaabo degdeg ah oo wafdigaasi ku eriyay qodobadaas ayaad ka soo aragtay dhiibo kartaan qaarkiin haddii aad nagu cusubtiin janalka subscribe hadin ahado la wadaaga muuqaalkan iyo muuqaalada kale saaxiibadana kale si ay qayb uga noqdaan daawadaasha ku xiran janalkeena laagta nagel maamina haatan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararkaasi oo faahfaahsan waxaanu ku bilaabaynaa warkeena wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii ay ka hortageen ciidamada ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana koox kamid ah ururka Shabaab ay damceen inay ka geystaan xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee geesiyaasha ayaa ku guuleystay in weerarka ay fashiliyaan sidoo kalena ciidanka ay ku guuleysteen in ay ka hortagaan qasaaro ba'an oo ay markaasi dableedu ay qorsheynayeen inay ka geystaan gudaha xabsiga dhexe waxay dileen ciidanku ilaa 3 sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka waxay sidoo kale ciidamadu qabteen rag doonay inay baxsadaan oo shabaabka kamid ah kuwaasi oo horey xukun loogu riday waxay ciidamadu sidoo kale badbaadiyeen maxaabiistii xabsiga dhexe saraakiisha ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen inay baaritaan ku hayaan kuwii ka dambeeyay weerarka iyo sida abaabulka u dhacay maadaama aysan suuragal ahayn in gudaha xabsiga dhexe ay rag ka tirsan shabaabka markaa ka dhex dagaalamaan warar kale uu helayo janalka qaranka TV oo aan ka soo xiganay ila ku dhow xafiisyada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xilka laga qaaday General Mahdi Abdiraxmaan taliyaha ciidanka asluubta sabab la xiriirta sida ay suuragal ku tahay in xabsiga dhexe gudihiisa ay ka dhex dagaalamaan rag ka mid ah shabaabka generaalka ayaa xilka laga xayuubiyay sidoo kalena waxa lagu wadaa baaritaan iyo su'aalo la xiriira sababta ay suuragalka ku tahay weerarkaasi ka dhacay xabsiga dhexe sidoo kale waxa looga yeeray generaalka xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si su'aalo loogu weydiiyo arinkani dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kol hore qaaday talaabo xilka xayuubin oo lagu sameeyay generaalada ciidanka sabab la xiriiray qatar amni dari oo ka dhacay gudaha dalka iyo dayac shaqo oo markaa lagu eedeeyay saraakiisha ciidamada weerarkaasi ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ka hortageen ayaa ku soo aadaya xilli ay ciidamadu sare u qaadeen ammaanka guud ee magaalada Muqdisho waxaana qaar ka mid ah falanqayaasha arrimaha ammaanka iyo xildhibaanayaasha dhanka amniga ay shaaciyeen falalka amni dare ee ka dhacay bariyahan gudaha magaalada Muqdisho iyo weerarkii ciidamadu ay ka hortageen ee ka dhacay xerada ciidan ee ku taala degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir isla markaana ismidaaminta isla toddobaadkan gudihiisa ay shabaabka ku qaadeen halkaasi in su'aalo badan ay ka yimaadeen waxa suuragelin kara maadaama shabaabku ay imanka beegsanayaan xarumaha ciidan iyo sidoo kale xabsiyada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho sida xabsiga dhexe
falaqayaasha dhanka ammaanka iyo xildhibaanayaasha waxay ugu baaqeen oo ay talo ugu soo jeediyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in isbedel lagu sameeyo saraakiisha ammaanka iyo taliyayaasha kale ciidamada. weli waxaad la socotaan daawadayaal ee wararka janalka qaranka TV meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaanu dilanahay wanaagsan wacan ee ka soo rigtay dhiibta ee qodobada warkeena bal haatan aynu eegno. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Jaale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir degdeg ah isugu yeeray barsaabada dowlad goboleedyada shanta ah ee kala ah barsaabka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, barsaabka maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, barsaabka maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, barsaabka maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo barsaabka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. shirkan ayaa loogu talagalay inuu dhaco ka hor shirka ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb bishan gudaheed ee u dhaxeynaya dowladda iyo dowlad goboleedyada kaasi oo lagu sii ambaqaadi doono wada shaqeynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo arrimaha kale ee masiiriga oo ay ka mid yihiin ammaanka, dhinaca doorashooyinka iyo qodobo kale. barsaabada dowlad goboleedyada ee casuumaadda loo wada diray intooda badan waa ay wada ajiibeen marka laga reebo barsaabka maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. shirka ayaa dhici doona intaan la gaarin 20ka bishan iyadoo 20ka bisha la rajeynayo in sidoo kale uu dhaco shirka magaalada Dhuusamareeb. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hogaamiyaasha dowlad goboleedyada kala hadli doona sida diiradda loo saari doono himilooyinka qaran iyo arrimaha masiiriga ah iyadoo madaxweynuhu dhageysan doono aragtida hogaamiyaasha dowlad goboleedyada maadaama ay qayb ka yihiin federaalka. kala hore shir ku dhaxmaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada isla markaana ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa guul uu ku soo dhamaaday. barsaabka maamulka Puntland ayaa inta badan ka cagajiida shirarka dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha masiiriga si uu qanciyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladaha gacan saarku la leeyahay ee dalka cadawga ku ah sida Imaaraadka Carabta, Kenya iyo kuwa kale. waana sida lagu eedeeyo hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. dhinaca kalena haddii aynu eegno Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland oo xaaladiisa siyaasadeed ay soo hagaagaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa ku gacan seeray wafdi ka socda dowladda Kenya oo markaasi u soo gudbiyay fariin uu soo dhiibay hogaamiyaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. wafdigan ka socda Kenya oo isugu jiray saraakiil sirdoon iyo xubno wasiir ah ayaa tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose toddobaadkan gudihiisa iyadoo diirad gaar ah ay ka dejisay garoonka diiradaha Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa wafdiga kula shiray muddo 2 maalmood magaalada Kismaayo waxaana wafdiga ay u dhiibeen fariin ku saabsan in Madoobe uu fuliyo qorshe ay damacsan tahay dowladda Kenya isla markaana Kenya ay ku doonayso inay ku fargeliso madax banaanida Soomaaliya iyo arrimaha maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa u sheegay wafdiga inuusan aqbali karin go'aanka dowladda Kenya maadaama uu dhibaato ku yahay madax banaanida Soomaaliya. waxaana heshiiska dowladda Kenya ay aadka u doonaysa kamida in Axmed Madoobe uu fuliyo qorshe ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay kamid yihiin inuu Axmed Madoobe mucaarado go'aanka doorashooyinka cod iyo qof ee dalka ka dhici doona si joogitaanka ama muddo kororsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya inuu ka hor yimaado in qaad fara badan laga dajiyo Kismaayo si loogu gudbiyo gobolada kale ee dalka iyo qodobo kale. taasi ayuu sheegay Axmed Madoobe inuusan aqbali karin xilligan maadaama heshiis iyo xal ay ka wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya isaga arrimihii khilaafkii ka wada dhaxeeyay. Kenya ayaa aad kaga carootay go'aanka diidmada ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana wafdiga ay dib kaga laabteen magaalada Kismaayo kadib markii Axmed Madoobe uu sheegay inuusan fulin karin qodobadaasi. dowladda Kenya ayaa kol hore arrimo siyaasadeed oo gurcan ka fulisay magaalada Kismaayo oo dhibaato ku ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed sidoo kalena xadgudub ku ahaa madax banaanida dalka balse imanka waxa uu suuragali waayay rabitaankeedii. geesta kalena haddii aynu eegno ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandoska Danab ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen goob u dhow magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana ay ku bartilmaameedsadeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. goobta howlgalka ka fuliyeen ciidamada Commandoska ayaa lagu magacaabaa Gamboole waxaana dhanka galbeed ka xigta magaalada Jowhar. saraakiil ka tirsan Commandoska ayaa sheegay in la dilay qiyaastii 6 kamid ah dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab halka ciidamadu sidoo kale soo furteen caruur aad u yaryar oo Al-Shabaab ku tababarayeen xero ku taala galbeedka magaalada Jowhar. ma jirin wax khasaare ah oo howlgalka ka soo gaaray dadka rayidka iyo xagga ciidankuba inta uu socday waxaana howlgalka ka qayb qaatay diyaarado nooca dagaalka ah sida ay shaaciyeen saraakiisha Commandoska dowladda federaalka ee Soomaaliya.
ciidamada qaranka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. ugu dambeyntiina dowladda Sacuudiga waxa ay u tanaasushay Imaaraadka Carabta oo bariyihii la soo dhaafay khilaaf uu kala dhaxeeyay. khilaafka labada dowladood ayaa ka taagnaa dhanka dalka Yemen, waxaana Sacuudiga uu dalbaday in lagu soo wareejiyo mashruuca gargaarka bini'aadanimo ee laga dejinayo magaalada Xudaydah ee dalka Yemen. xukuumadda Riyaad ayaa ka laabatay rabitaankeedii ku aadanaa in lagu wareejiyo gargaarka la gaarsiinayo dalka Yemen. hase yeeshee taasi waxaa diiday dowladda Imaaraadka Carabta oo u aragtay in markaasi Sacuudiga uu guud ahaan la wareegayo qorshe walba oo ku saabsan arrinta Yemen. warkii aad kala socoteen saaxiibayaal janalka qaranka TV xiliga kan waa naga inta ka bogashada wacan ee warkeena waad ku mahadsantihiin. warkan warkiisa xiga inta dib ka daawo doontaan daawadayaal waxaanu dilenahay sidaas iyo nabadgelyo.